taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa ka warbixiyay kulan uu sheegay inay uga arrinsadeen ammaanka iyo sida looga gudbi karo isqabqabsiga doorashooyinka dalka ee sanadka 2021 taliyuhu waxa uu sidoo kale tilmaamay in ay ka doodeen in ciidamada aysan ku milmi karin siyaasadda isaga oo sidoo kale ka digay wararka xanafta leh ee lagu faafinayo guud ahaan baraha bulshada waxa uu kale intaasi ku sii daray in Soomaaliya ay leedahay cadow gudaha iyo dibadda ah loona baahan yahay in shacabka iyo dawladda laga wada shaqeeyo guud ahaan horumarka dalkan isaad ka warqabtaan cadow buu leeyahay cadowgaas oo dibadda iyo gudahaba jooga si marka ciidamadu ay isu xog dhaafsadaan sidii wax looga qaban lahaa oo isu abaabuli lahaayeen waqtigan doorashada oo laga yaabo dad badan oo cadowgaas ka mid inay ku hamiyayaan inay ka faa'iideystaan waqtigan doorashada ayaa saldhigga umucdeenu u ahaa inaanu takhtiiraadka ama tartiibaadka noo degsan ee aanu ku maamuli jirnay caadiga markii la ahaayaan doorashadu jirin iyo hadda xaaladdu markay marayso cadowgu muxuu damacsan yahay dibadda iyo gudahaba waxaa arrimahaas oo dhan ayaanu aada uga wada hadalnay saraakiisha haddaanu nahay amniga qaranka iyagu ay gacanta ku haya waxaad ka warqabtaan oon cidina moogeyn in maalin walba askar wiilal iyo gabdho ah da-doodu yar tahay ay dalkan u dhintaan waad ka waraysaan inta dowlad goboleed oo aan hadda ka magacaabi karo gobolka Puntland dowlad goboleedka Puntland dowlad goboleedka Galmudug dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowlad goboleedka Jubbaland dhammaantood in ay ciidamadu ka wadaan sifayn ay ka sifaynayaan cadowga si ummadda Soomaaliyeed ay ugu noolaato si xor ah oo amni ah dhalinyaro badan ayaana ku dhimata oo naftooda ku waayaan sidaa awgeed wiilasha iyo dhalinyaradaas dhimanaysa waxaa hami gelinaya oo la rabaa inay hami geliyaan waa shacabka Soomaaliyeed waaye in nin walba dareenka uu maskaxda ku hayo gaar ahaan waxaan rabaa inaan ula hadlo meediyaha oo aanu faa'iido badan ka helo macluumaad badan la isweydiiyo oo dalka kani hadda horumarka uu gaaray meelaha uu aad ugu horumarsan yahay ka mid ah meediyaha inay gacan naga siiyaan in ay xaqiiqda ka gaaraan oo ogaadaan xaaladda dalkan iyo cadowga uu leeyahay iyo meeshu marayo marka sidaas ay muxuu ahaa shirkeenu ku saabsanaa waxaa kaloo jirta doorashadii baa la gelayaa dowlad goboleedyo waxaa jira aanaan weli tegin qaar goobo aanaan weli tegin oo rabo in la soo xaqiijiyo amnigooda iyo diyaar garowgooda iyo qalabkii in la geeyay iyo in kale iyaguna raba in la geeyo oo aanu rabno inaanu qaarna hadda tagnay qaarna hadda aanu u soconno waxaa laga yaabaa dadka dibadda jiray ama gudaha jooga inay meediyaha ka maqlaan kala duwanaansho aaraa oo qaranka mas-uuliyiintooda iyo waxyaabaha laga sheegayo annagu waxaan halka xamar lagama dareensana inta dareensanna waa intii meediyahaas waana wax iska dhammaanayo oo sahla haddana gacanta lagu hayo iska dhammaan doona ma aha waxaa ka weyn dalka ka weyn waxaa ka weyn amnigiisa waxaa ka weyn doorashadiisa waxaa ka weyn wada socodkeenna ma doonayno in muxuu ahaa la geliyo ama lagu abuuro rucbi waxa la yiraaho ama walwal dadka la geliyo dadku waxaan rabaa inay walwalin inay rucbi gudahooda ku jirin maxaa yeelay ciidamada amniga oo noocyadooda kala duwan ah waa ku filan yihiin amniga dalkan hadda inay sugaan waa la soo dhaafay waagii la dhihi jiray muxuu ahaa saasay ahayd oo saasay ahayd waxaa gacanna siiya oo gacanta weyn laga helaana waxa waaye oo khibrad aanu leenahay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda degan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ah waa garteen maanta xaaladooda iyo noloshooda iyo ilmahooda iyo tacliintooda iyo caafimaadkooda iyo horumarkooda dhaqaale meeshuu marayo
marka dadkaas dadku waa fahamsan yahay annaguna waxaan rabnaa inaanu annagoo ka faa'iidaysanayno fursadda tan inaan dadka khalkhal la gelin in muxuu ahaa noloshoodii caadiga ahayd ay wataan kuna gacanna ku siiyaan ciidamadooda amniga inay muxuu ahaa la shaqeeyaan oo ciidamada amniga oo habeen iyo maalin u soo jeeda roob hadduu da-ayo hadday qorax tahay u soo jeeda oo cadowga la dagaalamaya inay muxuu ahaa gacan siiyaan u soo sheegaan la shaqeeyaan marka saasaanu muxuu ahaa maanta aanu isugu nimi annagoo saraakiisha ah maxaanu ka bedelnaa takhdiidaadkii waqti doorashaa la gale sidee dalka muxuu ahaa amnigiisa loo sugaa xageen ka bilownaa maxaanu imkaaniyaad haysanaa maxaanu madaxda weydiisanaa informationka seanu isku dhaafsanaa maxaa jira xaaladdaa marka la galo waad iska garan kartaanoo taasay u badan tahay waana soconayaa muxuu ahaa wada tashiga ciidamada qalabka sidaa waa wada soconayaa anigoo marka ah guddoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka qaranka ugana hooseeya oo mas-uulna uga ah prime ministerka dalka maxamed xuseen rooble oo day to dayda shaqada ninka u hayaa ama guddiga u hayaa anigu aanu madax u ahay inaan la socodsiiyo marba meeshii ay marayaan iyo xaaladdu sida ay tahay meel fiicanaana wax noo marayaa waxaan rabaa dadka inaa idhaaho taleefanadan badan iyo waxyaabahan facebookyada iyo anigu facebook ba mali lakin facebookyada badan iyo waxaan badan oo aan runtii aan isdhaho qaar baan sax ahayn aan kulligood ma wada dhahay qaar baan sax ahayn in muxuu ahaa looga turo dalka qolada meediyaha sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay nala shaqeeyaan oo maanta meediya wuxuu noqday wax weyn oo lagu dagaalamo marka inay qeybtooda ka qaataan stabilityga dalka iyo fidinta amniga wax walwalah oo maanta hadday tahay saldhigyada hadday tahay deked hadday tahay aeroboort hadday tahay mid dhoofaya mid imaanaya hoteelo wax dalkaani wax walwala ma jiraan ciidamada ku jiraa oo kala duwan oo qoloba mas-uuliyad leedahay marna mas-uuliyad wadareed aanu leenahay ayaa gacanta ku haya intaasaan rabay inaan u sheego ummadda soomaaliyeed wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan u malaynayaa hadalkaygaba inaan ku bilaabay shirkaani inuu ka mid ahaa shirarka caadiga ah saraakiisha amniga ay isugu yimaadaan oo iska xaal wareystaan yidhaahaan doorashadii waa soo dhowdahay shalay jadwalkii waxaa lasoo dejiyey muxuu ahaa wiigii dhaweyd sarwii doorashada lasoo dejiyey annaga waa inaanu idhaahna jadwalkii waa lasoo dejiye maali heble maxaa qabanayaa xaggey ku beegan tahay xageed korsanaa intaasay ku saabsanay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu